lixda dhaqamood ama dabeecadood oo ay leeyihiin dadka maalqabeennada ah ama siyaabo kaleba ku horumaray waxaa la sheegaa mar walba inay dadka maalqabeennada ka dabeecado iyo dhaqamo duwan yihiin dadka saboolka ah. haddaba ma rabtaa inaad wax ka ogaato lixda arrimood oo ay sameeyaan dadka maalqabeennada ah. arrinta koowaad, soo kicidda aroorta ama subaxa hore. dadka maalqabeennada waxa ay soo kacaan subaxa hore kumana daahaan hurdada maxaa yeelay waxay ka faa'iidaystaan saacadaha dadku ay hurdaan, saacadahaasoo ah saacado uu qofku aad u firfircoon yahay. soo kicidda subaxa hore waxa ay ka caawisaa in ay ku socdaan jadwalka maalinkooda. waxaa la sheegaa inay soo kacaan 2 saacadood ka hor inta aysan shaqada bilaabin ama goobtooda shaqada aysan tegin. arrinta labaad, qorshe. waxa ay ku socdaan jadwal ama qorshe. dadka horumaray waa dad aan subaxii iska soo kicin iyagoon maalintaas qorshihiisa u qorneen ama meel ku ogeyn, balse waxaaba lagu yaqaan inay maalmaha, wiigaga ama bilaha soo socdaba ay sii og yihiin shaqada ka sugaysa dhammaystir iyo waxay u baahan yihiin inay ka salgaaraan. arrinta saddexaad, waxay dhahaan maya oo waa ay diidaan kamana xishoodaan markay dadka qaarkood ku dayaan inay ku mashquuliyaan waxyaabo aan dantooda ahayn maxaa yeelay waxay og yihiin inuu waqtigoodu qaali yahay ayna ku qabsan karaan waxyaabo badan oo muhiim ah horumarna leh. arrinta afraad, qaadashada qaladkooda iyo khasaaraha. dadka horumaray markay khasaaraan ama ay arrin ay muddo ka shaqaynayeen waqti badanna ay geliyeen ka burburto, dadka kale dembiga ma saaraan sida dhaqaalaha dunida, asxaabta, faamiliga iyo dadka la shaqeeyaba. waa ay qaataan khasaaradooda, waxna way ka bartaan, horeyna way u socdaan oo badanaa wixii tagay kuma mashquulaan, gadaalna uma fiiriyaan. arrinta shanaad, ka fakaridda caafimaadkooda. waxay cunaan cunto caafimaad leh, waxayna sameeyaan exercise ama jimicsi maxaa yeelay waxay ka fakaraan caafimaadkooda guud. arrimahaas ayaa ka caawiya inaysan ku soo degdegin jirooyin ama caajis ka fariisiya shaqooyinkooda, kadibna laga yaababa inay dhaqaalahoodu saa ku yaraado ama ay hoos u dhacdo. arrinta lixaad, shaqo badnaan. dadka maalqabeennada waxaa laga aaminsan yahay inay yihiin dad mar walbaba nasan oo ku raaxaysta lacagtooda, laakiin waxaa xaqiiqo ah inay yihiin dad shaqo badan oo u ogoleen nafta inay meel camal la'aan la fariisato. markay hantidoodu sii badatana waxaa sii bata shaqadooda. ma ka heshay barnaamijkan? ma rabtaa inay Bilan Channel kuu soo gudbiso waxyaabo aad ku horumarin karto naftaada? taaba subscribe si ay kuugu fududaato inaad la socoto barnaamijyo si heer sare ah loo soo diyaariyay.